Arrimaha dibadda ee dowladda Hungary Anastasiya Jarta ayaa sheegay maanta in dalkooda ay ku sugan yihiin ciidanka NATO, waxaana ula jeedaa buu yidhi ciidanka qaranka ee Hungary. Hase yeeshee, wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in aan xilligan loo baahnayn ciidamo dheeraad ah oo ka yimaada Midowga Yurub iyo NATO, waayo wasiirku wuxuu yidhi waanu ku filannahay amniga dalkayaga iyo xuduudahayaga. Mar la weydiiyey su'aal ahayd wasiirka, ma waxaad xaglinaysaan Midowga Yurub iyo NATO mise waxaad la jirtaan Ruushka, ayaa wasiirka oo dhoola caddeynaya wuxuu ku jawaabay, haa, annagu waxaan ka mid nahay xubin ka mid ah Midowga Yurub iyo NATO, hase yeeshee ma doonayno xilligan ciidamo dheeraad ah in dalkayaga la keeno, amniga waxaa ku filan ciidanka qarankayaga, ayuu yidhi wasiirku. Daawadayaal, baryahan waxaa saxaafadda haystay soo dhoweyntii iyo maamuuskii loo sameeyay madaxweynaha Faransiiska. Saxaafadda reer galbeedka iyo tan caalamka ayaana ku tilmaantay bahadilaad abidtii ugu weyneyd oo loo sameeyo madaxweyne ka socda Midowga Yurub iyo Faransiiska. Shalatole markii madaxweynuhu soo dhoweeyay madaxweynaha Kazakhstan ee Jamaarti Takayev ayaa lagu tilmaamay maamuus fiican iyo soo dhoweyn uu u sameeyay madaxweynaha dalka Kazakhstan. Daawadayaal, halkaan nagala socotaan waa barta YouTube ku leenahay Calas24 Post. Hadda iyo jeer waxaan idiin gudbinaa warar ku saleysan xaqiiqda, wararka caalamka, gaar ahaan xiisada ka aloosan xuduudaha u dhexeeya Ukraine iyo Russia. Daawadayaal, maanta dowladda Russia waxay soo bandhigtay diyaaraddii ugu dambeysay ee ahayd jiilka toddobaad. Diyaaraddaas oo magaceeda la yiraahdo Sukhoi 57 ama Su-57. Waxaa la sheegayaa diyaaraddan nooceeda kale in dowlad haysta caalamka aysan jirin, waxaana la sheegayaa diyaaraddan nooca ka dhuunta raadaarka inay tahay wax raadaar ah uusan qaban karin. Waxaa la sheegayaa xuduudda Midowga Yurub ee la leedahay dowladda Russia in diyaaraddan soo dul istaagi karto, iyadoo hawada ku jirtana ay ka duqeyn karto halkaas ilaa iyo Ingiriiska. Daawadayaal, waxaa la sheegayaa in diyaaraddan markii lasoo bandhigay maanta dowladaha reer galbeedka ay walaac weyn ka abuurtay welwel. Hase yeeshee, madaxweynaha dowladda Mareykanka shir jaraa'id oo xalay qabtay wuxuu u sheegay saxaafadda in shacabkiisa ku sugan dalka Ukraine sida ugu dhaqsaha badan ay ka soo baxaan. Wuxuuna sheegay madaxweynuhu Joe Biden in anytime la filan karo ama xilli walbaba dagaal inuu ka qarxo halkaas. Daawadayaal, waxaa nagala socotaan bartaan ku leenahay YouTube-ka wararka ugu dambeeyayna waan idiin soo gudbin doonaa ee ka soo kordha Ukraine iyo Russia. Waana mahadsantihiin daawashada aad daawateen iyo la socodka nala socotaan.